محمد جبريل وإمك يدوميه يوارد ليلة كسر هذه جامعة مركي لها أساس وحان إلهي ذكبرية إلى تكون بوليستان هملاضة waxay ahayd qadaf sharaf soo dhaweyn ah balse mahadnaqo badnayd oo jaamacadda Camuud ku maamustay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Daahir Rayaale Kaahin isla markaana looga mahadnaqayay waxqabadka uu weli raadkiisii muuqda uu kaga tagay guud ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaan jaamacadda Camuud madashan qadaf sharafta ah oo ay gaasinkeeda lahaayeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee jaamacadda Camuud ayaa ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka bulshada ee jaamacadda Camuud Professor Maxamed Maxamuud Jaamac Diiriye waxana uu soo dhaweeyay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin waxana uu yiri waxa si sharaf leh u soo dhaweynayna haddaan nahay jaamacadda Camuud madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin oo maanta nala jooga oo qada sharaf sameeyeen gudoomiyaasha jaamacadda gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha imika iyo maamulka jaamacadda ay qada sharaf sameeyeen ayaan sharaf nooca oo u fadhinaa maanta oo ku qadaynayna meesha madaxweyne Rayaale waxaan leenahay soo dhawow waddankaaga ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow jaamacadaadii ku soo dhawow mar hore iyo mar dambaba aad baan ku ixtiraameynaa waxaan ku ixtiraamsantahay inaad tahay madaxweynaheedii aad iyo aad u soo dhawow baan leenahay sidaas oo kale ayaa Professor Saleebaan Axmed Guuleed gudoomiyihii hore ee jaamacadda Camuud oo isaguna hadalka qaatay uu isdul taagay taariikhdii asaaska jaamacadda Camuud iyo kaalintii uu ku lahaa madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin runtii jaamacadda gudoomiyuhu ku maamusay qada sharaf annaguna ku taageeray in halkan la soo arko oo la sheekaysto madaxweynahana la soo dhaweeyo saad ka warqabtaan madaxweynuhu marka ay timaado jaamacadda Camuud qayb weyn buu ka qaatay of course inta iyadana waa wada joognay xagga jaamacaddan sheegi wixii uu ka qabtay ama ahaa barnaamijyadii wasaaradda waxbarashadu lahayd ee Scotkii iyo wixii la socday iyo hantida maguuraanka ee magaalada Boorame oo jaamacadda ku wareejiyay oo dhowr meelooda oo aan isticmaalno maanta meelaha aan si rasmi u deganahay kulliyadaha caafimaadka iyo freshmanka iyo dhulkay degan yihiin oo dhan waa dul dawladeed oo beelaha ahaa oo bannaana laakiin de khatar ku halis ku ahaa in la qaato ama private qaataan ama siyaabayaan macna lahayn loo isticmaalo ayuu jaamacadda ku wareejiyay maanta lafdhabar u ah bariga hore campuska Camuudeedna lagu wareejinayay aniga odayaashu u tagay madaxweyne ku-xigeenkii dalku uu ahaa isaga loo geeyay madaxweyne markaa jiray oo isaguna jaamacadda intii uu joogay taageero weyn ka qabtay Allah ilaahay qabriga ha u nuuree marka madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay abaalkaana waa ku haynaa laakiin de waa waajib aynu wada lahayn taariikhan wada leenahay oo gobolkan Awdal iyo dalkaba u tirsan oo maanta Awdal waxa ugu qiimo badan ay haystaan ay jaamacadda taayeen gabigeenba ka ahayn dad contributors oo mid joogto u jooga iyo mid madax u hay madaxweynaha iyo mid shicibaba wixii la qabtay waa guul wadareed u maanaado mar walba الله كلا يربط وقتكم بالله سدرا والله كلا وقت بدناي والله واحد سيء وحي أثرها كقبتي سود وجامعة داري يضل كاجيو gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo isaguna halkaas ka hadlay tilmaamay in waxqabadka dhinacyada dimuqraadiyadda iyo hanaqaadka jaamacadda Camuud ay ku suntan yahay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin yihiin kuwa uu wali raadkoodiisii muuqdo farxad weyn ayay noo tahay in maanta halkan kula qadayno ku soo dhaweyno madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin laba maqaam ku soo dhaweynaynayo waxa weeye ومدحوينه هره الجمهورية الصوماليلان ديمقراطية أساسي وحبذان وحوية نقطة كده شمودان لهذا الهيو نلت شوقي مقالة بورمي قصة بيتها مركاين إنه كجام عذهان سودوينه قطب كلامات مسنا بروفيسور سلام الشيخي هو مدحوينه أما مدحوينه كحيين كي مركي هرانا وحوية أنت بدن رو كان كوش قاينه نقولي شيء jaamacadda ku wareejiyay waxyaabo kale oo jaamacadda faa'iido u lahaa oo xagga gaar ahaan maaliyadda kor u soo qaadayna kala shaqeeyay weey marka anagu labada maqaam ku soo dhaweynayna waxaanu leenahay mudane madaxweyne waddanka ku soo dhawow jaamacadda Camuudna ku soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu wada joogno oo aynu sheekaysano
waad mahadsantihiin dambeyn ayaa madaxweyne daahir rayaale kaahin oo isaguna halkaasi ka hadlay uu ka mahadnaqay qada sharaftan loo sameeyey waxaana uu dib u milicsaday aasaaskii jaamacadda Camuud iyo talooyin wax ku ool ah oo uu jeediyay mas'uuliyiintii waqtigaasi ku hawlanayd aasaaska jaamacadda Camuud inaad ugu soo dhaweysaan jaamacadda Camuud maanta qadanaad ugu sharaftay waan ku mahadnaqayaa waxaan jaamacadda contribution ku lahaa waddanka oo dhan baad madaxweynaha ka ahaa mid kastaba contribution baa ku lahaa Camuud gaar ahaan waxaan ku lahaana mid waajib ah ayay ahayd waxaan si aad ugu faraxsanahay himiladii beriga Saleemaan iyo gurubkii beriga yimid hal dardaaran baan kula dardaarmay jaamacadda haddaad bilowdeen yeena meel dhexe istaagin baan idhaha hore u socoto waxaa mahad ilaahay ah inay jaamacaddii hore u socoto maantana ay tahay mid sii socon doonta waqtiyada iyo jiilaalka soo socda waxaan idin rajaynayaa hadduu ilaahay idhaahdo inaad guushaa halkeega aad ka sii wadaan iyo horumarkaa jaamacadda ilaahayna waxaan ka baryayaa inaad ku guulaysataan ujeedooyinka jaamacaddan loo aasaasay dhallinyarada ka soo baxdayna maanta maxamed jibriil oo iminka guddoomiyihii waa dhallinyaradii ka soo baxday jaamacadda markii la aasaasay waxaan ilaahay idinka baryayaa inaad ku guulaysataan himilada aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta qada wada yeelano oo halkaas ku nimaado